السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta chance umaan helin in aan mataqaanaa aan studio aan fariisto aan waraysiya qabto, laakiin maadaama dad tiro badan ay la soo hadlayaan oo su'aalo badan weydiinayaan oo ay doonayaan xaaladda socoto oo ay dhagaha ku hayaan, waxaan qaatay waqti yar in aan idinla socodsiiyo xaaladda maanta shirkii wadatashiga qaran ka dhacday. maanta waxaa la isugu yeeray guddigii degmooyinka oo ay madaxweynayaasha hogaaminayeen oo madaxweynayaasha ay fadhiyeen. waxaa laga doodayay xaaladda Addis Ababa oo kaliya waxaa laga doodayay xaaladda Addis Ababa oo kaliya 12 saacadood in ku dhow waa la yiraahday ayay dadkii ay ku jireen, madaxdu ay ku jireen iyo ergooyinkii khaaska ahaa ee u qaabilsanaa haddii wax la isku khilaafo in meesha la keeno. waxaa joogay madaxdii deegaamada oo idil madaxweynayaashii, waxaa joogay wasiiro, waxaa joogay ergadii dadkii matalayay. isku soo duubduub waxaa meesha isku haystay Amxaaro iyo Oromo. waxaa meesha isku haystay Amxaaro iyo Oromo. Amxaaro waxay leedahay magaaladan ha ahaato magaalo ay federaala oo aynan qabiil uunan lahayn. kasoo gudub Oromo waxay tiraahday magaaladan ha noqoto magaalo madaxdii, laakiin waxay noqoto wayna magaalo Oromo leedahay. madaxweynihii Oromada doodiisii markuu miiska saa u saaray, madaxweynayaashii kale oo dhanna ay ka soo horjeedteen oo uu ku jiro madaxweyne Mustafe iyo wasiirkii warfaafinta oo iyakuna si adag u dooday ugu doodayna in meeshaas ay noqoto magaalo ay Oromo leedahay, ayaa waxaa mikrofoonka isagana markuu qaatay wuxuu yidhaahday madaxweynaha Amxaarada, meeshan haddii laga dhigo magaalo ay Oromo ay leedahay, isku diyaariya in banaanbaxyo waaweyn ay ka dhici doonaan gobolka Amxaarada, faanana aad caawinaysaan. markii ay meeshu doodu ay saawsi kululaatay ee la kala bixi waayay waqti dambana ay gaadhay, waxaa la go'aansaday in Britoole la isku soo noqdo. isku soo noqodka Britoolena uu noqdo ergadii ka qayb qaadatay ee koobneyd ee ahayd degmooyin ka socotay, deegaamada ka socotay ee yareed ee madaxweynayaasha ku jireen, ayaa haddana inta haaf laga sii dhigay sidaan warbixintan ku helnay ayaa la yidhahday Britoole ha isku soo noqdaan iyaku ha ka doodaan oo arrintan wixii sidii wax loo sixi lahaa hadalka loo hagaajin lahaa ha sameeyaan. marka warbixintaas kooban ayaa ka dhacday Addis Ababa la isku dhegan yahay. marka Britoole inta la isku soo noqdo haddii la ogolaado weli xaarsan maalintii kaleeto oo waxaa la isku waafaqay oo dhan guddiga 4 kun ahaa loo akhrin lahaa, loo codeyn lahaa, shirki kadibna gabagabadiisa la samayn lahaa, xafladiina la samayn lahaa. taasaa aarsan, taasaa la isku haystaa. intaas warbixintaas kooban baan rabaa inaan idin siiyo. assalaamu calaykum. dadkii soo wada wacaya maanta hawada ma soo geli doono, shaqooyin badan baa jira. Britoolena dood aqoon-yahana ayaan qaban doonaa haddii ilaahay yidhaahdo, beri iyo sabtida iyo axadda 3 shay aan dhab TV kusoo gabagabeynaynay. arrinta wadatashiga qaran weeye. halkaa nagala socda. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.